taariikhdu markay ahayd 16 ilaa 17 July 2021 waxa wasaaradda deegaanku qabatay shirka wada tashiga kana dhacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer shirkaas oo lagu qabtay Hotel Mansour shirkaas ay ka soo qayb galeen wasaaradda deegaanka cadaaladda shaqada iyo shaqagelinta iyo arrimaha bulshada wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha waxa kale oo ka soo qayb galay barsaabada gobolada Togdheer Sool Sanaag Saaxil Saraar Daadmareer iyo Buuhoodle waxa kale oo ka soo qayb galay 6 taliye qaybeedyada booliska gobolada kor ku xusan taliyeyaasha ciidamada militariga gobolka Togdheer taliyaha iyo abaanduulaha aaga bari saraakiil ka socotay ciidamada badda maayirka degmada Burco waxa kale oo ka soo qayb galay shirkaas gudoomiyaasha maxkamadaha gobolada iyo degmooyinka xeer ilaaliyayaasha gobolada kor ku xusan waxa kale oo ka soo qayb galay shirka hay'adaha caalamiga kuwa maxalliga ururada bulshada iyo culimada shirka waxa lagu falanqeynayay arrimaha kala duwan arrimaha kala ah khatarta dhoofinta dhuxusha tagsiimooyinka cusub ee laga dhex sameeyo dhul daaqsimeedka dhul oodashada sharci darrada ah ka ganacsiga ugaarsiga iyo haysashada sharci darrada ah ee duurjoogta ujeedada shirka wada tashiga iyo ilaalinta deegaanka iyo noolayaasha waxa loo qabtay in laga tashado ilaalinta deegaanka iyo dhowrista noolayaasha kala duwan kana soo baxaan go'aamo wax laga qabanayo dhibaatada haysata deegaanka iyo duurjoogta go'aamada shirka ka soo baxay shirka waxa ka soo baxay in la fuliyo go'aamada la isku raacay ee hoos ku qoran waxa shirkan isla qaatay lana garwaaqsaday in mas'uuliyadda ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga dambiyada laga gelayo deegaanku tahay mas'uuliyad wadareed loona baahan yahay in qof kasta doorkiisa ka qaato shirku wuxuu go'aamiyay in dambi tahay jarida dhirta qoyan dhoofinta dhuxusha ka ganacsiga sharci darrada ah ee duurjoogta noocyadeeda kala duwan samaynta degsimooyin cusub ee sharci darrada ah iyo samaynta ceshooyinka laga sameeyo dhul daaqsimeedka qodobka saddexaad in la sameeyo wacyigelin guud oo ku wajahan dhibaatooyinka arrimaha deegaanka haysta in la dhaadhiciyo lana joogteeyo shirka noocan oo kale ah ee ku saabsan wax ka qabashada deegaanka ilaa heer degmo qodobka afraad qodobka shanaad in si dhaqso ah loo hawlgeliyo gudiyada ilaalinta deegaanka heer qaran heer gobol ilaa heer degmo sida uu dhigayo xeerka maareynta deegaanka xeer number 79 2018 in mashaariicda horumarineed ee saameynaya deegaanka ka hor intaan la fulin ay ka wada tashadaan wasaaradda deegaanka gudiyada heer qaran heer gobol ilaa heer degmo ee xeerku qeexayo si loo hubiyo in aanu waxyeelo u lahayn deegaanka qodobka toddobaad in xeerarka deegaanka guud ahaan in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo lana xoojiyo ciqaabaha ka dhalanaya xeerkan sida xariga ganaaxyada iyo la wareegista hantida dambiyada lagu galay si kor loogu qaado wacyiga iyo fahamka bulshada ee arrimaha deegaanka waxa shirku isla gartay in manhajka waxbarashada lagu daro maado la xiriidha barashada cilmiga deegaanka go'aamada kor ku qodobka 9aad go'aamada kor ku xusan fulintooda waxa la isla qaatay inay ka wada hawlgalaan wasaaradaha deegaanka arrimaha gudaha cadaaladda xanaanada xoolaha maxkamadaha kala duwan ee gobolada ciidamada booliska militariga iyo badda iyo dhammaan daneeyaasha kale ee ku taxalluqa ilaalinta iyo daryeelka deegaanka shirkuna qodobaduna intaas ku dhayihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh